ku dhawaad 80 haween ah oo laga kala keenay gobolada dalka iyo gobolka Banaadir ayaa ka faa'iideystay qaliimo xanuunka isku furanka oo ay hadda baak ka sameysay cisbitaalka Daynile magaalada Muqdisho kaas oo socday muddo 7 ah waxaana bukaanada qaarkood la sheegay in la xanuunsanayeen sanado badan maadaama laga keenay deegaano fogfog ee miyiga ah Professor Aadan Saalax oo ka tirsan dhaqaatiirta fulinayay qaliimada culculus kana socday wadanka Suudaan ayaa sheegay in lagu guuleystay dhammaan qaliimada la sameeyay كل يعني حاجة المركز الصحي يعني تمام جدا بس طبعا ما عنده اللي هو سيتر والسيتر نعتبر انه يكون هنا لكن كان عملت لك برضه من الزاويه دي ميدوفري سكول واحد من برامج الخط ميدوفري سكول تجيب من كل منطقه مناطق اللي انت شايفه وناسبه لها هاي تيجي تدخلهم هنا عايز لك بس هنا مدرسه سكول كان فصل وداخليا بس هي شويه بكلفك في الداخليا لكن ما في حاجه ثانيه يكلفك يعني داخل اذا عملت واحد من مشاريعك انه تجيب ميدوفري سكول بحيث انه تدربهم وتوزعهم على يعني امبارح عندنا كيس كان شفناه بشير في واحده ديليفرت يعني ولدت نورمال براءه كده عبد الله يوسف محمد madaxa guud oo ah madaxa guud ee hadda baak ee Soomaaliya ayaa ka warbixiyay ololaha xanuunka isku furanka oo ay hay'addu ka wado gudaha dalka laga soo bilaabo sanadkii 14 ilaa hadda waxa inoo suurtagelay inaan qabano 7 ololo campaign ah ololahaas oo lagu ciribtirayo isku furanka kan toddobaadoo maantadan anaga aan joogno hal arin kale oo gooni u leeyahay farxad kale oo gooni u leeyahay campaignada anaga aan soo qabanayo dhan hadii ala socoteen waxay ahaayeen campaigno oo anaga aan diyaarino waqti xadidan leh kadibna dhaqaatiirta inoo yimaadaan kadibna dhaqaatiirta ay kala tagaan laakiin kan miisada gaarka asaga uu leeyahay waa maxay kan waxa raacsan waxaan ku qabanay campaign-kaani xarunteena oo national fistula treatment and capacity building anaga aan asaasnay Caasho Shaacuur oo yana ka mahad celisay qalimada lacag la'aanta ah ee loo sameeyay haweenka Soomaaliyeed ee aanan awoodin in iska bixiyaan qarashaadka ku baxaya hase yeeshee loo baahan yahay in la sii wado dadaalada si haween kale ay uga faa'iideystaan waxaan rabaa inaan idin sheego salaan aan kaga wado ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo joogto iyo dawladda Soomaaliyeed oo dhammaantood og waxa dalkan aad ka qabateen dalka Soomaaliya waxaad ka qabateen wax mar iyo laba maahan waa wax Soomaaliya oo ogtahay shalay gabdhaha markaan la joogay qaarkood baa say ugu duceeyeen markaas ay ilmeeyeen waayo gabdhaha Soomaaliyeed oo dhibaataysan oo masiibada ku dhacday ma isdaaweyn karaan mana isqali karaan cid daaweyn kartana ma haystaan ilaahayna markaas uu sabab uga soo dhigay Cabduqaadir Shacab warbaahinta qaranka Muqdisho